السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا وراليال كسودو هذا سومالي توتوريالس. maanta waxaan idin hayaa 10 ku saabsan si aad background-kaaga uga dhigi lahayd blur ama mid aan si fiican loo arkeynin. Marka si aad uga dhigto sawir background-kaaga sawirkaaga background-kiisa mid blur waxaad sameynaysaa tilaabooyinkan soo socda qaadaysaa. Marka horeysa waxaan tageynaa layer-keena kadibna control J baan dhahaynaa si aan laba uga dhigano. kadibna waxaan sameynaynaa inaan selection ku sameyno sawirkeena. si aad sawirkaaga selection ugu sameyso waxaad isticmaali kartaa dhowr hab. haddii aad isticmaalayso Adobe Photoshop CS6 waxaad isticmaali kartaa quick selection tool-ka isticmaalaysaa. haddii aad isticmaalayso Adobe Photoshop 2020 waxaad isticmaali kartaa dhowr hab oo kale. object selection-ka ina isticmaasho object selection tool ina isticmaasho ama ina isticmaasho select subject option-kaas ina isticmaasho. si aad u isticmaasho object selection tool waxaad sameynaysaa asaga soo dooranaysaa kadibna waxaad sameynaysaa waa ku wareejinaysaa. asoo la wareejinaysaa asaga dooranaya marka si automatically sawirkeena kaliya u dooranaya. meeluu ka tago hagaajin doonaa laakiin inta badan asaga dooranaya. sidoo kale qaabka kale aad u dooran kartid waxa weeye inaad tagto select subject ina ku dhufato kadib wax yar baad sugaysaa asaga dooranaya. fadlan haddii aad u baahan tahay Adobe Photoshop 2020 videogeena hore ka soo daawo hadda soo dhigay si aad ula soo degtid oo update u ahaatay casharadan aad si fiican ugu raacdid. waxaad sameynaysaa hadda waa kana waa dooranay meelaha uu ka tagtagay oo kala saxaynaa sida halkan oo kale. waxaad soo dooranaysaa quick selection tool-ka soo dooranaysaa kadibna waxa u weynaysanaysaa. si aad u weynaysato waxaad isticmaalaysaa bracket-ka. haddii aad rabtiin close bracket ba isticmaalaysaa. haddii aad rabtiin yareysana waxaad isticmaalaysaa open bracket ba isticmaalaysaa. si aad meelaha ay kaaga khaladka kaaga gaadhay uga yareysid waxa la taabanaysaa alt waa yareynayna kadibna sasan dhayna halkan waa sax weeye. sidaas kale markii minus noo noqoto kadib aan saarayna kan waa sax. meelaha khaladka nooga gaartay alt aan la qabanaynaa kadibna waa ka tiraynaa. wakaas halka waa dooranaan filayaa. sawirka waqti ku bixi si fiican u soo dooro sawirkaaga. meesha ugu dhibka badan waa halkan selection-ka inaad sameysid. halka la qabanayna boqolkiiba boqol haddaan sixi weysina dhib ma lahan. sida hadhow waan saxaynaa oo kusoo laabanaynaa waxaan kadib waxaan sameynaynaa sawirka marka wada dooratid waxaad sameynaysaa halkaas ku dhufanaysaa select and mask meesha ku qoranta ku dhufanaysaa. marka click siiso saana ku soo baxaysa. halka waa inaad ka dhigataa overlay waa inaad ka dhigataa si aysan kugu soo baxdo. smart radius-ka saar tigta kadibna waxaad sameynaysaa smoothness-ka wax yar baa ku daraysaa ilaa 7 meelahaas ay geynaysaa. edges-ka waxoogaa waa yareynaysaa. lixitoban aan yareeyey kadibna waxaad sameynaysaa halkaas click siinaysaa new layer with layer mask ma dooranayna. okay waan dhahaynaa markaas. si aad aragtaan hadda new layer buu noo sameeyey. si aad aragtaan waxaan sameynaynaa marka si aad u aragto layerkaaga inuu ka saaray background-ka labadan ka hooseysa iska xir. waa ka saacad sawirkeena background-ka uu ka saaray meelahaas uu ka tagtagay waa sixi doonaa.
si aad u saxdo meelaha uu yararka oo khalad ka gaaray layer mask-ga soo dooro kadibna waxaad tagaysaa brush toolka markaad tagto soo weynaysa sawirka hadda fiir waa kaasa hadda dan saas dhahno wuxuu sameynayaa waxaan iska tirnay ugu soo celinaya haddii foreground colorkaaga uu yahay cadaan wuxuu sameynayaa wuu ku soo celinayaa color waxaad iska tirtirtay wuu ku soo celinayaa haddii foreground colorkaaga uu yahay madow wuxuu sameynayaa wuu ka tirtirayaa hadda fiir meesha isku hadaan tirno hadda wuu naga tirtirayaa wixii saxda ahaa wuu naga tirtirayaa marka haddii aad rabto inaad wax ka saarto sawirka aad wax ka jirto waxaad isticmaalaysaa foreground colorka waa inuu madow ku yahay background colorkuna uu cadaan ku yahay haddii uu foreground colorka uu ku yahay cadaan wuxuu sameynayaa wuu ku darayaa waa kaas hadda waxbuu ku soo darayaa si aad u bedesho sidoo kale waxaad isticmaali kartaa x hadda waa rabtaa anagoo meesha tegin bay noo bedelaysaa waa kaas si fudud bay kugu bedelaysaa marka hadda sawirkaaga soo sax waxaad khaladay waqti badan ku bixi halkaan maan filayaa inaan wax ka khalday farta qeyb baa go-aan baan filayaa waa kaasa x baan soo taabanayaa x markaan taabto wixii sameynaya sawirkii wii soo celinaya meelaha iska khaladka u tirtiray sidoo kale x baan taabanayaa si aan isaga tirtiro okay control 0 dhahaysaa si aad toos ugu tagto sawirkaaga taas marka inta waxaa sameynaysaa sawirkaaga hadda selection-ka ku samaysay si fiican baan u soo jartay sawir kuwa ka hooseeya soo celi sawirkaaga waxaad tegaysaa midkaad jartay layer maskigiisa tegaysaa layer mask markaad tagto control baa qabanaysaa control markaad qabato click baa siinaysaa control click markaan siiyo hadda waa kaasa selection buu ku sameeyay sawirkeena markuu selection ku sameeyo waxaa sameynaysaa sawirka ka hooseeya tegaysaa waxaa ku dhufanaysaa select baa tegaysaa select markaad tagto modify baa kasii tegaysaa expand baa ku dhufanaysaa expand markaad tagto halkaas waxaa ku qoraysaa 25 baa ku qoraysaa 25 baa ku qoraysaa 25 markaa ku qorto okay baa dhahaysaa okay markaa dhahdo waxaa sameynaysaa edit baa tegaysaa fill baa ku dhufanaysaa fill baa dhahaysaa fill markaa dhahdo halkaa waa inay ku tahay content aware okay baa dhahaysaa kadibna waqti yar baa inay qaadataa laga yaabaa marka wax yar sug si aad u aragto isbedelka ku dhacay sawirkaagii kan kor iska xir waa kaasa isbedel baa dhacay wuxuu saaray sawirkeena meesha ka saaray control d waxaa sameynaysaa marka si aan waxaan yar cadcadka isaga saarno waxaan soo isticmaalaynaa clone stamp toolka tagaynaa kadib altan la qabanaynaa halkaas kolan waxaan ka soo qaadanaynaa sambal okay waxay kadib sambal baa soo qaadanaysaa kadibna saas ku saaraysaa marka inta sameyso wakaas hadda waa ka tirtirnay okay baa dhaysaa kadibna waxa sameynaysaa sawirka wakaas hadda waa tagnay
adoo isla leerkaagaas jooga waxa ku dhufanaysaa filter markaad tagto blur baad tagaysaa blur markaad tagto Gaussian blur baad dooranaysaa Gaussian blur markaad dhahdo blurkaaga wad adjust gareynaysaa hadba meesha aad ugu rabto in aad ashuuca ugu fito darabto xogaa halkan siyaadinaysaa hadaa rabto wax yar inaad ku furto way isticmaali kartaa okay sidaan u deysanaynaa kadibna waxaan sameeynaa sawirkeena soo furayna waa kaas hadda sawirkeeni asoo waxba laga bedelin baa waxa background-keeni baan waxaan ka dhignay mid shuuca ku furan yahay si fiican loo arkeynin waa tahay sawirkeeni waa kana blur baan ka dhignay si aan xogaa wax yar effect iyo qurux ugu darno waxaa sameynaysaa control baa qabanaysaa leerka ka sareeya la dooranaysaa convert to smart objective oo bedelaysaa kadibna waxaa sameynaysaa filter baad tagaysaa filter markaad tagto camera raw filter baad dhahaysaa okay wax yar temperature ku dar baa ku dardaraysaa hadda kadib okay baa dhexaysaa sadaratan sawirkan markii hore saan u ahaa saana ka dhignay markaan ugu qurux badan yahay xogaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan subscribe noo saara channelkeena haddaad ku cusub tihiin si aad u heshaan casharo iyo aqoon fara badan mahadsanidin